بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta kulamada horyaalka Ingiriiska ee isbuucan la ciyaari doono. Horyaalka Ingiriiska ayaa furmaya maalin Jimcaha iyadoo kooxda kubadda cagta ee Arsenal u safri doonto kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Kulankan ayaa ah kulanka ugu horeeya horyaalka Ingiriiska la ciyaari doono wuxuuna dhacayaa maalinta Jimcada ee soo aadan. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo shirkii jaraa'id maanta qabtay kaga hadlayay ciyaartoyda dhaawaca ka maqan kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa sheegay afarta ciyaartoy ugu muhiimsan ee dhaawaca ku maqan saddex kamid ah in ay galabta tababarka ku soo noqon doonaan saasitayna ay kooxda la safri doonaan kulanka ay la ciyaarayaan Crystal Palace. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace waxaa dhaawac kaga maqnaan doona ciyaaryahanka la yiraahdo McCarthy, Butland, Tompkins, Olise iyo ciyaaryahanka la yiraahdo John Stone. Dorcas ciyaartoy ayaa ka maqnaan doonta kooxda Crystal Palace markii ay soo dhaweyso kooxda kubadda cagta ee Arsenal kulanka lagu furayo horyaalka Ingiriiska dhici doona maalinta Jimcada 5 bisha. kulankaas ayaa soo galaya 10ka fiidnimo. Tababaraha Arsenal ayaa sheegay in weli suuqa iibsiga uu furan yahay inay doonayaan in ciyaartoy badan iska iibiyaan qaarna ay soo iibsadaan. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay aad ugu diyaar garoobeen season-kan iyadoo kooxda Arsenal marka la eego kulamadii saaxiibtinimo ay ciyaartay dhamaantood ay wada badisay qaab ciyaareed fiican ay soo bandhigtay. Kooxda Crystal Palace ayaa ahayn koox shar yar kulamadii ay la ciyaartay kooxaha waaweyn sanadkii soo dhaafay kooxda Arsenal 4 dhibcood ay ka qaadatay. waxaa la arkayay kooxda kubadda cagta Man City oo iyadana barbarac kula gashay garoonka kooxda kubadda cagta Crystal Palace. sidoo kale Crystal Palace ayaa ka badisay kooxda kubadda cagta Man City markii uu tagtay Etihad. sidoo kale Tottenham ayaa garoonkaasi lagu badiyay 3-1. kooxda kubadda cagta ee Arsenal sanadkan wax badan miyaa iska bedelay 3 dhibcood ma ka soo qaadi doontaa garoonka kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. marka aynu eegno ciyaartoyda dhaawaca ka maqan kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee muhiimka waa Kieran Tierney, Emil Smith Rowe, ninka la yiraahdo Tomiyasu iyo sidoo kale ciyaaryahanka cusub ay soo iibsadeen magaciisa la yiraahdo Fabio Vieira. balse tababar ayaa sheegay saddex kamid ah afarta ciyaartoy in ay tababaranayaan maanta Britain ay la safri doonaan kooxda. haddaba si sax ah uma san cadeynin ciyaaryahanka aan tababarka soo qayb gali doonin mana sheegin saddexda ciyaartoy ee tababarka ka qayb galaysa la safraysa kooxda. haddaba daawade maxaad ku saadaalinaysaa kulankan labada kooxood inuu ku soo dhamaan doono saadaalka bixi?